ayaada dhibka kugu haysto xaafadda deegaankaaga maxaa ka mid ah oo ah macnaha ka cabanaysaa? waxaan ka cabanayaa ciidamada Emerson oo la dejiyay dowladka nambar 50 iyo nagu soo duulayo niman qabiil ah oo Biimaal Maxamed la yiraahdo hoosta ku hayaan onko beela oo meel degan maal walba nagu soo duula haddana iska caabi maagna iska cilmi maagna hub waaweyn oo noo soo adeegsaday nimanka Biimaalka macnaha oo meesha ku soo duulaya idinkoo deegaanka meesha idinka yaa waay deegaanku waa dad hawiye ka kooban laakiin abgaal u badan hawiyaanta ka koobanna waa hawiye degan meesha Soomaaliya hawiye degan meesha oo xoolaaley oo beerey oo goofley meesha waa lama ka tusama waa nambar 50 dushiisa nambar 50 waa Amisonta maxay idinku samaysaa marka? Amisonku waxay nagu samaysaa marna waa la soo duulayso waa la socotaa marna markaan iska caabino iska naqnana madaaficin lagu hurgufiya daba jeex naga reebaysa Amisonta markaa u tagtay maxaa u tagi weyseen oo uga caawin weyseen? maba u tii karno goday ku jiraan nimankaas iyo anagu soo magili karno oo nimanka Biimaal Maxamed iyo anagu leeyahay haddana hawiyana soo magili karno wadada Shabeelle hoose nimanka goosta waay wadadan dheer oo lama ka ilaa iyo markaada ilaa markaada nimankaas waa u go'anta laba maro waxaa kaloo ku weydiinaa dawladda maxaa uga caawin weyseen dawladda macnaha cabasho ugu muujin weyseen ugu qeyrin weyseen ugu dacweyn weyseen wadar gooran qaylin xamar hataa dad aan diri maagna waa la idinka reebahanadii wax naga reebana waa la duulaan biri noo qatama biri hal meel noo qatama waa koobtay waan la jira qolyahay aa koodin waa ikuna daba jeex iyo madaafiic waa waxaa ku weydiinaa hadda maxaa ka codsanaysaa beesha caalamka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya nimankaas adnabiga oo nimankan salka noola galeen inay naga reebaan oo xeerdada nooga reebaan ama naga bedelaan meel kala geeyaan dawladda Soomaaliya waxaa ka codsanaysaa farmaajo iyo saraakiisha ciidamada dawladda waxaan ka codsanaynaa beesha Biimaal oo gaalada noo hoos gashay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Waafow oo noo adeegsado qalbigiisa dawladana sheegaya qabiilna caloosh uga jira oo nagu soo duulay maalmo oo Emerson ugu soo hogaamay waxaan biraasanayaa waa beesha hawiye Soomaaliya beesha hawiye waa maba dhaafayo waliba yiriba beesha hawiye anigu wadankayna nooga baxayn waa niman daldiida wadankay leeyihiin ku yaala wadankan leenahay ilaa Shabeelle hoose oo dhamaan ka iska leeyahay arracad iyo arrimadu labada dhinac ka iska leh wanaga wadada u goonta hadda gaadiidku tamari karin okay nabadoonka macnaha beesha hawiye ee deegaanka lama konton oo ah kaas فيت نوضون فيت وبالله التوفيق عالم كانوا أوجد بينا يو إذا عذا نبوا وقع بينا إن شاء الله وبالله التوفيق دولة الحمد لله أنتم مقالك هذا الكاي معنا ستة دقائق نسوي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله